السلام عليكم مساabta aan ku xira barteena youtube-ka telegramka waa anigo Shafiid Daawud maanta waxaa ka hadlayna waxa waaye wax kale ma ahan waxaa ka hadlaynaa waxyaabo muhiim ah oo laga rabo inuu ogaado qofka followers ku jiro waxyaabaha mawduucyada maanta ka hadlayo waxa waaye muhiimadda oo trendline-ka leeyahay sidoo kaleeto qaabka trendline-ka loo saarto trendline-ka la iskama saarto waxaa jira qaab loo saarto iyo shuruudo ayuu leeyahay sidoo kaleeto qaabka SL-ka loo rarto iyo trade ID-ha aan soo diro qaabka loogu faa'iideysto goldhigoo kaleeto trade ID ayaa kasoo diraa marka qaabka aa ugu faa'iideysan lahayd haddeertaan mawduucyadan haddaa ku hormaro haddaa inaa qore ayaa diidaya waxaa waqti badan inuu igaga baxmaro videoga oo video haddoo dheeraad waxaa waa dhibkiisuu leeyahay marka muhiimad trendline-ka wax kale ma ahan waxaa ku ogaanaysaa suuqa jihada uu aadayo ma uptrend ba mise downtrend trendline-ka waxyaabaha loo saarto tusaale ahaan oo kale hadda suuqa oo kale markuu sidaan oo kale yahay tusaale ahaan oo kale hadda suuqa markuu sidaan oo kale yahay suuqa markuu sidaas oo kale yahay aad trendline saarato waxaa ogaanaysaa suuqadan inuu yahay uptrend uusan ahayn downtrend balse laakiinse intoosan trendline-kan aadan saaranin dabcan sidaan markuu yahay waa ogaa kartaa inuu uptrend yahay balse laakiinse waxaa qurux badan markaad trendline-ka saarto xitaa waxaa ogaanaysaa in suuqan marka uu soo dhacayo tusaale ahaan oo kale had yartaa markii trendline-ka oo kale sidaan oo kale hoos soo suuqa uu jibiyo hadoo kale suuqan waxaa ogaanaysaa in uptrend-ka uu ku socday oo ka dhammaaday oo isku diyaarinaya downtrend oo hoos bilaabanaya marka trendline-ka muhiimada trendline-ka wax kale maahan waxaa ku ogaanaysaa suuqa inuu yahay uptrend mise waa downtrend sidoo kale haddaa ka gudba midkaas oo qaabka trendline-ka loo saarto trendline-ka la iskama saarto marka waxaa jira shuruudo tusaale ahaan oo kale hadda kasoo qabo suuqaan oo kaleeto tusaale ahaan oo kale hadda suuqaan oo kale waxaa waa uptrend marka shuruudaha trendline-ka wax kale ma ahan trendline-ka inuu kuu saxsan yahay waxaa ku ogaanaysaa waa in laba meel laga celiyo trendka waa in hal meel oo kaleeto ma jirto sidoo kaleeto waa in trendline-ka laba meel laga celiyo aysan ku jirin suuqa meesha oo maraya tusaale ahaan oo kale hadda sidaan oo kale markaa ku dhahaayo hadda sidaan oo kale waa suuqa tusaale ahaan oo kale markaas trendline-ka saas oo kale uma saaranaysa oo suuqa hadda wuxuu marayaa meeshaas ayuu marayaa weli lagama celin marka shuruudaha trendline-ka wax kale maan waa in laba meel in laga celiyo suuqa meeshaas aysan ku jirin suuqa meesha oo marayo tusaalahaan oo kale sidaas oo kale markuu ku yahay ayuu ku saxsan yahay trendline-ka markaan oo kaleeto sidaas oo u saari kartaa laba meel aa laga celi weliba labadaas meel waa laba meel isku xigta inay ahaato tusaalahaan oo kale hadda sidaan oo kale adoo sidaas u saara kara haddaa dhahdo kaasaa saarana si qaldan ayaa u saaranaysaa adhow waxa waaye mar walbo trendline-kaaga kaa qaldan yahana intri qaldan ayaad galaysaa mar walbo trend kaa qaldan yahay waxaa qaadanaysaa intri qaldan marka trendline-ka waa la iska saa very important waay kadib trendline-ka oo kaleeto sidaas ayaa u saaranaysaa waxaad yartaan trendline-kaaga sidaas ayuu kuugu saarmaya sidaas markaa u saarato had yartaan laba meel waa laga celiyey oo waxaa waa 1 2 weli waxaa waa laba meel oo isla siman tusaale ahaan oo kale hadda suuqaan oo kale markuu meeshaa maraayay waxaa suganaysaa inuu trendkan imaado kadib markuu cugsado aad buy u raacdo aad lugtaasi aad ka faa'iidaysatid impulsiga mar walbo trendline-kaaga mid kaleetan ogsoon mar walbo trendline-kaaga laga tago waa impulse mar walbo lagu soo laabtana waa correction mar walbo trendline-kaaga laga tago waxaa waa impulse mar walbo lagu soo laabtana waa correction mar walbo laga tagana waxaa waa impulse waay marka shuruudaha trendline-ka waxaa waaye in trendline-kaada laba meel laga celiyo labadaas meel laga celina ay noqoto laba meel oo siman sidoo kaleeto aysan ku jirin suuqa meesha oo hadda marayo sidoo kale waxaa jira qaladaad trendline ayaa jiro haddii midaas ay idin raaciyana ay idin faa'iideeyo tusaale ahaan oo kale hadda kasoo qabo tusaale ahaan oo kale hadda waxaa kasoo qabataa sidaan oo kaleeto
tusaalahaan oo kale kasoo qabo sidaan oo kaleeto hadda marka waxaa ku dhaha koodii hore shuruudaha trainlineka waa in laba meel laga celiyaa then markii laba meel laga celiya ayuu trainlineka labadaas meel waa inay laba meel oo siman ay noqoto aysan ku jirin suuqa meesha hadda maray tusaalahaan oo kale sida saxda waa sidaan hadda marka waxaa ogaanaysaa suuqaani in up trainka uu kusoo koodii hore impulse kadib mar walbo trainkaaga leeto waxaa ku dhaha impulse waa mar walbo lagu soo laabtanay waa pullback ama waa correction oo lagu soo laabtay marka haddana mar kale ayaa laga tagay mar kale ayaa laga tagay oo impulse waa kadib markaa muxuu sameeyey trainkaygu waa usoo jiibo markaa waxaa ogaanaysaa in suuqii up trainka ku socdo oo dhammaaday oo isku bedeli rabo oo hoos aadi rabo oo dhowr tiro isku bedeli rabo marka hadda waxaa isku diyaarinaysaa inaad sell u gashid oo confirmation aad suginaysaa oo sell iskama gelaysid dan sell ayaa u raacaysa suuqan oo buy uma raacaysid oo trainlinekaagii ayaa lasoo jibiyey balse ka waran haddii qaladaadka trainlineka oo kale waxaa kamid qofka asoo sidaas u saaran karo oo trainlinkiisa sidaas ugu saxsan hadduu sidaan u saarto oo dhaho kow intaa laga celi labana intaa laga celi andan qofka oo kale meeshaas markuu ka galo oo stop losskiisa inta dhigto waxaan hadda socdo waa pullback oo wuxuu soo jibiyey suuqi trainlineka ayuu soo jibiyey oo pullback waa sidoo kale waxaa laga yaabaa meelahan oo kaleeto inay resistance oo kaleeto ay noqoto idan trainlineki oo inta ku saarnaan ay isku soo aadaan oo cugsado kadib hoos u soo aadso marka qofku wuxuu is leeyahay suuq kow intaa laga celiyey labana hadeertaan intaa laga celiyo oo suuqa meesha hadda marayo saar trainlineka soo meesha ugu saxsaneed oo saara karo marka waa laba meel oo isku xigtaa saaranaysaa trainlineka oo isla siman tusaalahaan oo kale qofku markuu sidan u saarto inta ka galo qiimaha caleeya in 10 bib ama 15 bib uu siiyo dan uu kusoo laabto hoos soo aado stop loss ka aado marka waa la iska ilaaliyaa midaas waxayna kamid tahay khaladaadka trainlineka ayay kamid tahay shuruudaha trainlineka waa kuu sheegay sidoo kaleeto khaladaadka trainlinkana hal mid ayaa kuu raaciyey oo hadeertan tusaaleya hadeertan ku siinahay marka videoga inaad ku ceshid isku day si aad u fahantid sidoo kale qaabka SL-ka loo rarto tusaalahaan oo kale hadda midaas waxaa ku sharxaa example ahaan inaad samayso isku day tusaalahaan oo kaleeto waa kana MT4-kaada MT4-kaaga oo kale waa kana and then MT4-kaaga oo kale markuu sidaan yahay inta akoonkaadii oo kale kugu qoran tusaalahaan oo kale trade-ka oo kale markaa gasho waa kana lacagta magaceeda sidoo kale faa'iidii khasaarana inta kugu wadaa and then markaas waxaa samaynaysaa faa'iidii khasaare markay kugu wado trade-ka waxaa stop loss-ka rari kartaa markuu faa'iido kugu wado midaas ogsano trade khasaare aa ku jirtid stop loss-ka ma rari kartid oo entry ma keysan kartid sababtoo khasaare ayaa ku jirta markaa faa'iido ku jirto ayaa stop loss-ka raran kartaa marka waxaa samaynaysaa trade-kii ayaa riixaysaa markaa riixdo wuxuu kusoo saaraa modified oo stop loss ka bedel ama new order inaa mid kale aad geshid ama wuxuu kusoo saaraa close day intaas ku xir hadduu faa'iido ku wado ama khasaare hadduu ku wado marka adiga waxaa taabanaysaa modify markaad taabato waxaa kusoo baxayo tusaale ahaan oo kale waa kana ka soo modify markaad taabato lacagta magaceeda xagga oo kale ku qormayso lacagta magaceeda tusaale ahaan oo kale lacagta ay ku jirto meesha ka hooseyso waxaa ku qorayso tiradaas wax kale maahan waa entry suuqa meesha aad ka gashay tusaalahaan oo kale anaa lacag soo diray sell ama buy aa ku dhahay and then ani entryga kuu soo raaciyay markaa gelaysid entrygaas inaan ka gelin ayaa laga yaabaa entry kale aad ka gashin sidee entrygaada ku ogaanaysaa marka waxaa ku ogaanaysaa lacagta ayaa imaanaysaa markaa lacagta imaado waxaa samaynaysaa modify ayaa taabanaysaa modify markaa taabato kadib stop losskii meesha kugu jiray waxaa ogaanaysaa marka kor ayaa fiirinaysaa oo lacagta magaceeda ayaa kusoo baxay sidoo kale tiro oo ka hooseyso intrigii meesha aad ka gashay kadib waxaa samaynaysaa stop losskii waa kana TB-giina waa kana stop losski tiradii inta kugu qorneed aad iska tirtiraysaa kadib tiradaas aad ku buuxsanaysaa dhan ayaa taabanaysaa oo markaas stop losska entry ayaa keensata oo waxay la micno tahay hadduu trade-kan igu soo laabto khasaare ma ugu galo oo 0 ay u kala baxo sidoo kaleeto trade-ka half oo kale markaa ka xiranaysid oo ku dhaaf faa'iidada oo kaleeto half ka xiro tusaalahaan oo kale trade-ka oo kale kasoo qabo waa kana wuxuu ku wadaa lot waxaa ku gashay 0.010 oo kaleeto kadib wuxuu ku wadaa $30 half ka xiro markaa ku dhaho waxaa rabtaa inaad $15 ay ka xiratid lotka oo kaleeto half ka xiro markaa ku dhaho waa in lotka ka hadlaa markaas oo kale lotka haddaa ku jiro 0.10 oo kaleeto
waxaa sameyn kartaa 0.05 oo kale xiri kartaa ama 0.60 senti ama 80 senti waxaa rabtaa xiri kartaa laakiin haddaa ku jirtid 10 senti lot ka yar ma jiro oo 10 senti meesha ugu yar waa oo markaas oo kale half ma xiri kartid bas laakiin haddaa ku jirtid 20 senti oo kale 10 senti aa xiri kartaa haddaa 30 senti ku jirto ama 20 senti aa xiranaysaa ama 10 senti aa xiri kartaa marka waxaa sameynaysaa asana oo kale close ayaa taabanaysaa trade-ka markaa riixdo close ayaa taabanaysaa close markaa taabato intoo kale wuxuu kugu soo saaraa khasaaro ku xir oo ku leeyahay ama faa'iidaad uu ku wada xataa hadduu trade-ka khasaaro kuugu wado la duweynaa trade ku gashay khasaaro kuugu wadaa andan half-aa xiri kartaa xataa khasaaraha oo waxaa sameynaysaa trade-ka waa riixaysaa close aa taabanaysaa kadib markuu ku dhaho khasaaro ku xir lotkii oo kale inta kaaga soo saara lot 0.10 oo kale hadda ugu jirtay lotkii aa qabanaysaa waa ka tirtiraysaa markaa ka tirtirto lotka waa kala qaybinaysaa lotka aragti inaa xiratid aa meeshaas ku qoraysaa kadib khasaaradii oo inta kuu soo saara ama faa'iidaada ku wada close ayaa taabanaysaa asna sidaas ayaa ku xiranaysaa oo sidaas ayaa sameynaysaa sidoo kale haddaa ka gudbo waxaa diidaa in uu videoga dheeraado marka waxaa sameysaa ku cesho video si aad u fahantid waa muhiim in aad fahantid marka sidoo kale qaabka trade ID-ha looga faa'iideysto tusaale ahaan oo kale badanaa waxaa aragtay anoo gold ku leh meeshaas gagal hadduu meeshaas jibiyo tusaale ahaan oo kale hadda maanta oo kale kasoo qabo maanta oo kale goldi saaka waxaa soo diray nashqaduu ku socdo waa idiin sheego oo goldi hadda markaa 15 minute oo kale aa geeno hadda waxaa arkaysiin tusaale ahaan oo kale markaa sidaas u calaameysano tusaale ahaan oo kale markaa sidaas u calaameysano goldi nashqaduu ku socdo waxaa waaye impulse correction impulse sidaas ayuu ku socdo saaka hadda ertan waa soo dhigabo marka qaabka trade ID-yaa looga faa'iideysto waa muhiim inaad ogaato si aad ugu faa'iideysato tusaale ahaan oo kale hadda goldiga oo kale saaka oo kale meeshaan ayuu maraya waa kana tusaale ahaan oo kale ad saaki meeshaas ayuu maraa gold oo aad yartaan chatkan oo kale soo dhigay group VIP oo kaleeto chatkan soo dhigay marka waxaa dhahay goldiga nashqadan ayuu ku socdaa mar walbo hadda waa kana chatkiisa markaa idin tuso waa kana jaadkiisa gold oo had saak waa kana markaas soo diraa meeshaas ayuu maraayay oo waxaa idin dhahay goldi sidaan ayuu ku socdaa oo markuu meeshaas jibiya ayaad gali kartaa kadib hadda waa kana uu soo laabtay haddana meeshaas ayaa ka galaysaa kadib hadda waa kana nashqadan ayuu markaas samaysanaa oo waxaa dhahay goldi up waaye markuu meeshaas jibiyo hala baagaray hadda marka waa kana waa uu jibiyay meeshii adiga marka sida qaabkee ugu faa'iideysanaysaa adiga waxaa sugaysaa inta trade-ka markuu meeshaan imaado inta uu jibinay sidoo kale xitaa markuu jibiyo bullback yar ayuu ku sameeyaa saacadaha yar oo 15 minute oo kale hadda waxaa arkaysaa markuu jibiyay oo booday waa kana candle kale yar ayaa soo laabto oo wiiga uu noqdo waa la celiyay isla markuu taabto meeshii marka hadda waa kana meeshaas oo kaleeto markii la soo jibiyay xitaa laba mid waa sameyn kartaa buy stock oo kale waa dhigi kartaa balse laakiin buy stock marka qaar wuxuu ku xunyaa markuu ka taabto oo uu soo laaban karaa marka waxaa la sameeyaa isha ayaa lagu hayaa markuu jibiyo waa la dhigtaa badanaa oo waa dhigi kartaa oo stop loss ka oo kale markaas oo kale meelahan ina fogeysay noqonaysa balse laakiin sidoo kale oo kugu fiican waxay tahay trade ka hadda markuu sidaan u soo jibiyo 15 minute candle ka hadda waa aragtaa si buuxa ayuu u jibiyay si buuxa markuu u jibiyo waxaa sugaysaa inuu bullback ku sameeyo waa kana bullback ku sameeyo meeshaas oo kale ay ka galaysaa stop loss ka oo kale tan meeshaan ayaa dhiganaysaa 60 bibo kale ayaa dhiganaysaa TB no waa kaaba ilaa 140 ilaa 150 bibo kor aad u golay
qaabkaas ay ugu faa'iideysan kartaa trade area oo waxaa sugaysaa inta oo meesha jibinaya midaas oo samayn kartaa midda kale ee ku xuntaa waxay tahay tusaalahaan oo kale hadda meeshaan oo kale kasoo qabo nashqadaan oo kale hadda waa kana hadda fiiri 15 minutes oo kaleeto waa candleka fiiri waxaa laga yaabaa xagga oo kale aad dhigatay buy stop and then fiiri waa uu kaa taabtay isla marka fiiri candlekii intuusan waqtigiis 15 minutes oosan dhameen maxaa la sameeyey rejection aa lasoo siiyey reject labadaa candle bis hadda isku fiiri farqiga u dhexeeya candleladana waa muhiim insha Allah 10 oo kasoo duubi doona hadda candlekan iyo midkaan marka isku fiiri kan hadeertaa markuu meesha jibiyo oo ka dhex baxay asagoo waqtigiisa oosan dhameysan tusaalahaan oo kale 5 minutes ama 6 minutes u dhimanto kale rejection aa lasoo siiyey waa lasoo celiyey and then fiiri resistance-gii body meesha ku xirmay fiiri resistance-ga ayuu ku xirmay kadib baa kana 70 bib camal hoos soo aaday balse markaan fiiri markaan asagoo sameeyay candle rejection la siiyey oo pin bar ayuu haddana wuxuu ku jibiyey strong buy markuu ku jibiyey oo xirmada candlekaani oo buy wuxuu ku xirmada waxaa suginaysaa candleka labaad inta oo meesha uu jibiyey retest yar uu ku sameynayo hadda waxaa aragtaa 15 minutes qasab waa pullback yar ayuu ku sameynayo pullback yar ayuu ku sameeyay kadib markuu pullback-kaas ku sameeyo and then xagga ayaa buy ka gelaysaabo stop loss-kaagana 40 bib ka badan bi 30 then ilaa TB 140 bib ka dhigaysa ilaa 100 bib oo dhaqaaqa qasab waa goldie hadda waa kana xitaa fiiri tusaale ahaan hadda 1 hour oo kaleeto sidoo kale xitaa hadda janiska haduu ku dhaafo mararka qaar oo kale 1 hour ka ayuu pullback ku sameynaya 15 minutes oo kaleeto pullback yar ayuu ugu sameeyaa sidoo kaleeto 1 hour kana qasab waa pullback oo ku sameeyaa hadda waxaa arkaysaa kana marka uu jibiyey waa kana pullback hadda ku sameeyay oo uu taabtay meesha markuu taabtana rejection aa sii weli hadda waa kana candle karo buy hadda karo kale ku aad hadda beriyo kale marka waxaa sameynaysaa meeshaas oo kale calaamaysan sida nashqadaan hadda ku socda gool meeshaas oo kale calaamaysanaysaa kadib sidaas oo kale marka uu calaamaysato waxaa sugaysaa inta la jibinayo meeshaas hadda waxaa laga yaabaa maanta oo kale inuu meeshaas leeyahay cawada kale ku wareegsan ama cawada meeshaas uu jibiyo oo korkiisa yahay marka trade idea qaabkaas ayaa looga faa'iideystaa oo waxaa sameynaysaa oo u suginaysaa inta oo meesha hadii ku dhaw meeshaas gool markuu jibiyo gal sidaas oo kale sameey karta ama buy stop oo kale waa dhigi kartaa laakiin mararka qaar oo sidaan oo kale ayaa dhici karto hadda qaabkan oo kale ayaa ku tusay laakiinse way yar tahay qaabkan goldie oo hadda oo sameynay balse laakiin mar walba inaad ka taxadarto way fiican tahay waxa ka hadlayna waxay tahay muhiimadda trend line-ka sidoo kaleeto maxaa la lahaa qaabka loo saarto trend line-ka qaabka SL-ka loo soo rarto iyo sidoo kaleeto trade idea qaabka looga faa'iideysto intaba waa ka hadlay video ku cesho si aad u fahantid sidoo kale asxaabtaada la wadaag haddii tahay markii kugu horeysay channelka subscribe saar sidoo kale kambalelka furo si waxaa soo dhigna ay ku soo gaaraan mahadsanidin